jidka haddii la xiro awlaaddii naga dambaysa way baahayen maalintaas waxaa korkiisa allah ka dhigaan leenahay ninka waddada naga xiraayo waayo annaga meel wax nooma saarno maxaa yeelay anaga kunkaasna la sii ayaan ku noolnahay nama taane dad kale dibadda nooma jiro magacayga waxaa la yidhaahdaa xasan aadan axmed waxaanu nahay dad naafo ah oo aad iyo aad u tabaalaysan dadka baahiyaha gaarka qaba ayaanu nahay meel haddaan ku tiirsannahay ilaahay ka soko haddaan ognahay ma jirto yacnii nolosheenna adduunku waxa waye jaranjaro waay marka waa u jeednaa in baawuraha dadka qaar bururf ay iskaga socdaan daaradaan dhadheer meesha la iskaga dhistay anaga dalka dadka xuquuqda wax ku leh ayaanu nahay waayo qof soomaaliyeed oo naafo xabadna kuma naafowin xag allah ayaan saan ka naqannay alxamdulilah dabiiciyaani la yidhaha naafada dabiiciga maalmaha ka mid ah anoo meesha ka soo baxay oo subax ay tahay magaalada muqdisho aan u soo qaraab tegey waddooyinkaa la xiray bajaajaa saarnay waddadii markii la xiray mana dadkii oo dhan mootooyinkii dhan waddooyin feelay galeen inta ilaa waxaa feel la galay meesha ugu dambays waa soo gurguurta anoo gurguuraha bajaaj meel laga soo bursadaa dabad inta iiga imaada afogambo iridi waa raggan aad u jeedda badigooda bannaankay wada degan yihiin dadka qaar xoosh qaxday degan yihiin marka ayagoo dhibaatadaas ay mootadii halkii dollar ay noloshooda ilmahooda ugu raadsanayaan markay ku soo raacaan waxaa qori looga celinayaa meesha etis control laabtaa la leeyahay lama dhahay ninkaa ma xanuunsan yahay ma jiran yahay ma naafiya maxaa sow yahay la dhihi maayo la su'aali maayo iga laabaa lagu leeyahay haddaad doonta dhimo markii ay ugu darneeday maalin aan halkaas liigu xeray oo waddada ay xirneeday garguuridkan ka soo bilaaway ii sheeg adiga saybiyaane ilaa iyo nambar 4 garguurigan ku ima intaas dhibaato ah ayaan dawladda ku qabnaa dadka waddooyinka xiraaya marka waxaan ka codsanaynaa dadkaas in loo diirnaxo oo waddooyinka dhibaato nagula samaynaya nagala qaado dadka oo birmageedada oo waayeliinta iyo dadka xoryaamiinta saas oo kale wax sisma iska daa waddadii cunaybna qabteen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ka codsanaynaa in alxamdulilah xuquuqdeenna ayaga alxamdulilah mas-uuliyaddeena saaran tahay in wax meel noo saaraan insha allah jazakallah maalinkaas waan agbana waan arkaanba waan arkaan insha allah waan aragtiin bagaari burufa ku martiin insha allah waan aragtiin farinkel ma rabtiin insha allah waan aragtiin xuquuqdeenna meel ku sheega